عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. soo dhawaada asxaabta. haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka, subscribe inoo saar, gambaleelka furo si aad ula socoto casharo ku saabsan barashada luqadda Ingiriishka. Casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay waa grammar, waa tenniskeeni saddexaad, present perfect tennis. hore waxaan soo dhiganay simple present tennis, sidoo kale waxaan soo dhiganay present continuous tennis. waxaan kala dhigan doonaa tenniskeena saddexaad, present perfect tennis. usage isticmaalkiisa is used for waxa loo isticmaalaa an action ficil which has recently completed before. ficil wax yar ka hor dhamaaday ayaa loo isticmaalaa. usage isticmaalkiisa is used for waxa loo isticmaalaa an action ficil which has recently completed before. ficil wax yar ka hor dhamaaday ayaa loo isticmaalaa. formula qaacidadiisa waxaan u qaybin doonaa 3 qaybood: positive, negative iyo question. positive markuu yahay waa subject plus have ama has plus verb 3 oo magaciisa loo yaqaano past participle oo wajiga saddexaad ee ficilka plus object. negative markuu yahay waa subject plus have ama has plus not plus verb 3 oo wajiga saddexaad ee ficilka plus object. question yahay waa auxiliary verb plus subject plus verb 3 plus object. auxiliary verbkiisa ficil caawiyihiisu waa have ama has. toddobadii verb to be I, you, we, they waxay qaadanayaan ama ay wadaagayaan have, he, she, it. saddexdaasna waxay wadaagayaan ama ay qaadanayaan has. examples tusaalooyin: positive hadal caadiya, negative hadal diidma ah oo not ba meesha soo galaysa, question su'aal. I have spoken English. wax yar ka hor Ingiriisi baan ku hadlay. I have not spoken English. wax yar ka hor Ingiriisi kuma hadal. Have I spoken English? wax yar ka hor ma Ingiriisi baan ku hadlay. You have learnt English. wax yar ka hor Ingiriisi baad baratay. You have not learnt English. wax yar ka hor Ingiriisi maad baranin. Have you learnt English? wax yar ka hor ma Ingiriisi baad baratay. He has played football. wax yar ka hor kubadda cagta ayuu ciyaaray. He has not played football. wax yar ka hor kubadda cagta muu ciyaarin. Has he played football? wax yar ka hor kubadda cagta miyuu ciyaaray isagu. We have written lesson. wax yar ka hor casharka ayaynu qornay. We have not written lesson. wax yar ka hor casharka miyaynu qorin. Have we written lesson? wax yar ka hor casharka miyaynu qornay inagu. She has read book. wax yar ka hor book bay akhrisay. She has not read book. wax yar ka hor book may akhriyin. Has she read book? wax yar ka hor book miyay akhrisay iyadu. They have sent money. wax yar ka hor lacag bay direen iyagu. They have not sent money. wax yar ka hor lacag may dirin iyagu. Have they sent money? wax yar ka hor ma lacag bay direen iyagu. It has eaten fish. wax yar ka hor kalluun bay cuntay, waa xayawaan. It has not eaten fish. wax yar ka hor kalluun may cunin. Has it eaten fish? wax yar ka hor ma kalluun bay cuntay xayawaankaasi. waa su'aal. aad baad ugu mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga fiidiyogan. wixii su'aalaha commentiga diga weydiin kartaa.